gudidii dhexdhexaadinta ka dhex bilowday xukuumadda madaxweyne biix iyo xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa waxay markii ugu horeysay ka warbixiyeen halka ay dhexdhexaadintu u marayso gudida oo uu u hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka u injineer Faysal Cali Waraabe waxa uu sheegay in kulamadii ugu horeeyay ay maanta la yeesheen gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Erro isla markaana uu gudoomiyaha Cabdiraxmaan u qabsoomay gudida isla markaana dhankooda ay la kulmi doonaan wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynaha Soomaaliland gudoomiyaha Faysal Waarimaani faahfaahinaya waxa uu yiri salaatu ala sayyidina sallallahu alayhi wasallam horta waa hore idin sheegay qadiyadan komishanka ka taagan arin khusaysan maaha labada xusbe ee mucaaradka waa arin qaran oo u baahan in qaranka oo dhan arko oo daafacaan sharciga horta meeshan aan daafacayna marka watan si fiican ugu noo socotay waqti shaydaanku inaga soo dhaxgalay shalayto shaydaanku horta naarina subxaanahu shaydaanki waanu tagnay meeshalayto waxaanu tagnay aniga odayaasha anigu cumaamadii hadda waxaan qaadanay magaalada odaynimada si xusbiga halkaan ayaan dhignay wasiirka daaqli waa u tagnay aniga odayaasha madaxweynayaashii hore iyo qolada ka socota akademiyada boardka akademiyada maanta waa action macaway ugu jiraan civil society waxaan warna socda waxaan doonaynaa inaanu qolada wadana ka raaridno inay joojiyaan mudaharaadka inshaan mudaharada ma aha isku soo bax oo sharcigu siinayo hadaa la qoonsaday xafiisyada isku kaalaya dawladda ay soo dejiso cidii xidhay ka tirsanaa xusbiga marka wadani waan ka helay 10 saacan la balanay madashino aad u mahadsantahay way ergeyna ku yimaadeen wayna go'aan ergadii hadana waxaan socnaa wasiirka arrimaha dibadda ee gudaha insha Allah naga ogolaan doona ergada madaxweynaha jiniya jawaan isku tagi doona insha Allah ta'ala insa jin waa isku tagayna insha Allah ta'ala gudoomiyaha waxa jira kulan gaar ah oo labadii xisbi kulankaasi soo wuxuu dareemaa inaanu ergahaban ugu tagnay xusbiga inuu arintan raaligan u sameeyay ilaa dib noogu dhiga marka waxa socota dialogue iyo diblomacy ba socota ayna marka hadhootana tala midaysan yeelano waxa weyn wada khusaysaay kalsoonida ka qabtaan madaxweynaha Soomaaliland ka hadlo inta wajini waan isku tagin waxaan adeegsanaa insha Allah ta'ala burhaantan ku ciina insha Allah horta waa sharciga sharcigu maraya sharciga sheegaya maanta noo yeeleen guurtidu waxaan dib noogu dhiga wadamka jawi kordhisi maadaama jiro dabku wax ku soo wasiyo kulan saarintu marka insha Allah markaan arintan dhamayno ayaan guurtina insha Allah ta'ala iyo wixii talaan hayno ayaan siinna marka waxa weey dadkeen waxaan nabad ku seexda burca weyn wanaagsan tahay alxamdulillah rabbil caalamiin boorna way fiican tahay berbero way fiican tahay hargeysna waa tii amarka wada siiyay ilaahay wada joojiyay marka arrimo waxay ku soo noqonayaan si wanaagsaneed iyo nabadeena ilaashanayna bidnabadeena ilaashanayna wixii ay naqosaynayna oo wada jirna oo reer Soomaaliya wada jirteen waxa si inoo han saacado in xalina dalay Cabdiraxiin Mooli Ismaaciil shabakada wararka Ilays News magaalada Hargeysa